البركة مجلس مشاجن أنا وإيش يقول البر بان كاسي البر كجبانا مركاني علي هاي هذيك وحلا جودها إبناك باك شغال شغال waana armaajada qorsheyn saaras fadhigan maxkamadeed waa Baydhabo Janaayo xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana la soo taagay ilaa eedeysano oo ku lug yeeshay falal kala duwan oo argagixiso Cabdiyare Bare Aadan iyo Cali Iimaan Isaaq ayaa si gaar ah fadhigan loo soo istaajiyay ku lug lahaanshaha qorshaha qaraxyada miinooyinka Bardaale oo ay xogta hayeen تلفون أي ويدي واحد تلفون هنا لبدن ده هذا الممر تلفون ويدي وأنا كسبيدها الليلة يا تلفون كاس أسيب ويري تلفون يباور بنجي يا غات واحد كلا نومر ده هيان تلفون كاس ويدي تلفون كاس ويرادي أنا هذا مش شيء مية ما دهن مية الله يكالوه قرحنا دي عرفان مش شيء مو نكاس كلام حوا علي سجى واحد سجى لي وتوه أنا واحد كوجاي ما أبين كي مركز لجوكتنا قرحنا مية مركز موبايل كويدينا مقرح لعي ما موبايلكم سجال ساوي رادي أيه أو معلن ما نيو واحد راي ميل جوبر روسن جوجاي لعله مركز هو شيء كذا ما دام كوي ما نيجو كبادي تلفون كي كبحوا تلفون كي أوكل التلفون كي باور بنجي كل إسلامين كي واحد دان أنا مركز سجى تارك لبا بينجي تارك لبا هاد أنا تارك شنا اللي ساقط أو جورجي اللي يقول ما مدة دون أوكاني إن جورجي اللي يقول ما ذا اللي يقول سوى ذا بيش سديدات دون مرة بيش لباد اللي سوى ذا مركز قرح دعاية وأصل جوكتين مية ها هذه بلود ما لذا ما يسجى بلود له تلفون كي مركز يقول يموت هاي وانو إما هذا تلفون كي جالس يسوي إسكاك فدي بتاتا ما دام بكيس كي مرة سوق قالوا قاضوا إلى أونا ولا أساسا يعني بلود من قاد معهم وانا كسبت عيار تمام وانا كسبت هوا يا روان لا تلفون كي ولا سجى كديل تلفون كم وانا كسبت كديلا سجى كديل يا كان دبعت له أنا يجي وتلفون هذا محقق تقفان أنا ما معانا وان قد يجري هذا حاجات بجاج له مقالد مركان جوجي برد المكان جوك معايا بجاج لنا نكاس دم متقانا كان دبعت هذا إسبرت علي مستقانا ما يقون كالأملي أنت أنكو برت دبعت هذا إسبرت بيش الله بعد أنت لقى بلابان كهر ما كان ديجان كم هم أسيق ديجان كم هم أنا بردالان كي أنا حفظي دوا بردال أصلا راه برمونو دوا وجي هم إسقرنا لكن دبعت هذا مركي ما دوم بانس برنا أقول كالوسكو ملي ودي أسيق علي هاي هذيك وحلا جودها إبناك باك شغال شغال بلدك موضوع صوبيا أيه لم لوالي كشقة ما طلع قولوا لي ها أيه يا كشقة بلدك كشقة لم لوالي كشقة شقة كلا شغل مكلي هنكون تلاس حبسوا كلاس كبرنا ما عن مسكسان Yaasiin Nuur Maxamedna waxa uu ogaal u ahaa uuna dhageeyay Cabdiyare iyo Cali Iimaan oo ka arinsanaya qorshaha halista ah nasiib darasoo uusan la wadaagin lamaha amniga inis wal meel hadii kimi in shaagna saasalama abniga kula hariir waay may yarayniyo magaaladu ala dareen jar oo ku garaha in dhiyo ku yaaba jaada fadaani jaadka basilan kanaga in lahayna maleeyo way yar yo warkaasi may ku jaro may hanasi ma ku ogdoori warkaasi dheegi laakiin ada banaanka man bahaaso lan oo shaqeeya banaanka iyo mooda magaalada ko yaa jare rida ada banaanka mooda soo warkaasi jare magaalada ala dareen ku jare amalan kanaga kornay i jart way yar soo baati jaadle qooy dooneen oo buko isbahni diir han diirela hada horta aman eray xaafado oo dadko dhalinyarada aan geeyin kooyan dhulka ku gaday waa bantaba kooyana madaas balahan gobda intaba kooyana yoona kulli walba ay sheegana ya miilanka seeni wana kasbida dhiileen beesbiyo makasaanayo telefoon ngiwiren beesidii ambini hatana madii oo ada tumi iyo koosa ibarsi amala miilaha ku tabni haafada tiiday kooyni haafada tiiday madii una makrabka madili tukudaysay amala ya qaraha gadi misla joogtaan marka kaas ha isla roogni qofka ku dhahay kee waaye waa kan abjira waay marka ma ku sheegay qofka la beegsana ma ku sheegay mise qaraxa dhacaylo xaalan kaasan oo in la raadiyahay maleeyo way yari abduu ninkee abduu joobay kan kale oo magaalada baxaya kee waaye kaasu gidaal jar magaciis cali cali muxuu kaaga sheegay ma shaqeeyay la yari ma waa kale u siin sheegay ma jiraan binaankana bahay magaaladana ko ay shaqeeyay la yari bas waa kale u siin maga dhooyin sheegay ma jiraan markii ay wadiisay markii qaraxa dhac kadib oo suursateen misla hadlino qaraxa markii una jaada amani wana kasbida dhigani jaadka bano go'naay markuu jaad kale sugaani ada tuman daqiiqa say amal markii sunil roogi yanoo tabiis neew umbato hango magaalada haasha intii wala ku dego kistoor suga erne musugaana erhay noo tabi telefoonka iyo nahay baawrti oo uslahayn ani in ku tabi saasana ku tabiis ما مسورستين قرح ما كود عكدب سو مايا مسورسن والكلام مسورسن قرح كما ددي كبعد والكلام مسورسن أسي أنا شباب ولا شقية ما كده مايا شباب اسكو دافع أنا شباب تورتاني هو بيصير نوبا ولا أنا
ما بسيدنا بان أراضي بس asagana ساموشي أنا سكولي موشي والكشجاو مدينا أنا إسقالني إني بدأ أنا موشي أنا بمركاتب عن لها برد على هو بنا داف جده جل بهاي ما beertay geeda ka baxay shabaab aniga ma bis arag korno u dhiib cali istaaji marka cabdi cali aadan ilbir ayaa isna halkan u taagan inuu ahaa shakhsigii ugu wakiilka ahaa khawaarijta soo gelinta qaraxyada magaalada Bardaale askari ka tirsan ciidamada oo fadhigan la hor keenay ayaa ka mar furay dambiyada loo haysto eedeysana ilbir noo magaale roob Abdiraxmaan aadan roow waliba ka tirsan daraawish degmada Bardaale langaha iwiri oo Ciise Lerow Ciise Abdullaahi Ibrahim Lerow yaa iwiri waliba yareynay oo danga ko lahaa meel raayis gudoomiyaha la socota walwal baad fulay korta lankaasa meel raayis holkeen wadar fadeeyay ayay madan fahmay ana markuu in dareerin shaq mushaar qaadaas ay yari ha bili bool konton qaadaday bool konton qaadaas ha bili sid bool ka sii yari bili sid bool ka sii hol sa fuliyaas yari hol saaw miinil kindibe miinada sa gudoomiyaha goljeyn jeesay yari waana armaajada qorsheyn saaras odba ku hay odad aan ku duubay badan ba ku hay markan balaasa gudoomiyaha jeesay yari waqti badan ay balimi oo ku sugay baala waana kuwaysanay markii saas yaraya gudoomiyahan sheegay labadaagi talaan bisuugda degmada Bardaale suun labadaagi aranta markuu waa booliska sugay markan aad markii dambe aman sii Soomaaliyeed ay weeri baaliyaashan ay meel hebel taalan soo yari milo haafada horseeday oo beledka ku baxan oo doorka haafada binaansha ay sheegay bay mootlam lugaada qaaday si tararan lahay mootlam lugaada oo wili islay beledka roogdihay indiri lanka mootadii raay sidlan hayni ani talaan bisuugda iyo yarko kale hayni si tararan lahay meel oo ma intilmaamay oo musha oo calaamad hareegan insaari yaa intilmaamay markii aan meeli ana saadi ya waleeragay lankan oo meeli calaamada linka tilmaami hooskiisa soo surunyi hadda ku birmay ku dhuumaday markiisa habahi telefoonka ka hadalay wili markiisa habahi ku baada yaani meeli saadi ani talaan bisuugda bahliyada inkasani markaasa gudoomiyaha yoonay amson talaal wargili sidii lan qoy baa qofka isla hadlayseen oo shabaabka ha ku sheegay ilbir la shaqeeyo ma ku dhax may kuma dhigin maydin markii ilbirka meesha marka tagtaa aragtay meeshii baashi taalay baa ugu tagay maxkamadda ayaana sidoo kale warbixin ka dhageysatay gudoomiyaha Bardaale ee gobolka Baay gudoomiyaha degmada Bardaale aan ahay magaciisa waa Maxamed Saa Xasan hadda la gudoomiye saddex tookan gudoomiye ka noqday intaan gudoomiye ka ahaan waa meenadii oo Bardaale wax saraakiil ku dhamaatay wax aniga la beegsaday ilaa 19 miino amala yaa meeshaas ka dhacday mudane gudoomiye qaraxan markuu dhacay horta dhowr qarax baa dhacay oo waxa ku dhintay koow taliye daraawiishta qarax uu ku dhimanay ninkan Cabdiyaare waa loo soo qabtay waa loo xiray waxa laga soo bixiyay biibtada uu sheegay macaanka hoosta iska faala laga soo bixiyay dad waad garanaysaa qaraabe waa odayaal baa u imaaday ani markaas gudoomiye gobol baan ahaa amniga meesha xasilin waa isla jirnay saaxiibkay odayaal baa saas ku sii daayay taliyina sidii uu ku dhintay ka bacdi markuu qaraxan aan hadda ka bilaabo markuu qarax dhacay ninka gudoomiyaha barakacayaashu ahaa aad loo raadinay wali mar uu soo cabsay xaafadu ila degay haddana xaafad agteeda oo jeere ah uu degay meesha waxa ka jiray qabiil is haysta oo dhinacna shabaab garab siinayo oo shabaab dhax ku dhex jiro dhacdo kale Bardaale dadka dhan waa ka warqabaan iyo qaar dawladii koonfur galbeed ah marka qaraxa markuu dhacay yaasiina yaa waxa soo wacay gudoomiye ku xigay Sweden buu aaday yaa soo wacay wuxuu yiri inuu qaraxa caawa yaasiin baan israacnay anagoo jidka marayna wuxuu yiri niyo magaalada qarax baa ka dhici doono waan Cabdu Joobay wax badan oo fakaday caraas gadaashiisa waa laga celin waayo ma caawa isaga la beegsanaya sidoo ku ogtahay marka yu jawaab ku celiyay marka anaga haydi amniga markaan fadhiisanay yaasiin inta xogtan laga helay waxaan soo qabanay Cabdiyaare oo hooshi yaasiin afkiisa noogu sheegay yaan ku qabanay Cabdiyaare wax badan oo inkiraya ninkaas oo is yaqaanaan aniga 12 sano gudoomiye meesha saddex tooka camal ku noqday ninkan 14 biyaajaan xirnay oo tuhun shabaab loo xiray maalin aniga jidkaan maray mootaal waawraan wadanay jidkaan maray meel tuulaan ku qabanay sahan buu ahaa marka internet tan Bardaalna waan daminay tan oo diilana waan daminay marka kaligiis oo mooto
yaa jidka nooga hor imaaday okay kaas waa cali mootada uu markaas lahaa uu wadayna waxaa u soo gaday nin hadda maaliyadda gobolka u qaabilsan xasan daqri la yidhaah oo ilmo adeer ay yihiin shabaabka oo shabaab ahaa hadduu shabaab yahayba ninka waxaa dhan soo fududeyn qaraxyaalka marka soo fududeyn oo lacagta bixinaya waa qabanay saldhigga bardaalan geynay mudduu xirnaa damiin adagaa lagu sii daayay wuxuu ka shaqeeyaa marka duurka iyo banaanka marka wuxuu gabaad ka dhigtay nin hadda qaraabi yihiin oo hadda guddoomiye ku-xigeenka ahaa oo meesha tegey ninkan aniga la idhaha waxa uu sameynay malaha saas adigu aad garanaysaa nimankan dhagartooda dowladda ay gacan ay hoos geliyaan horta way is yaqaaneen taas aniga ku qarayo arrinta yaa si uu sheegayana waa rag qiilay oo loo sheegay waxaan inta ayagoo dhicin cabdiyara u sheegay weliba dad kaloo makhraati oo bardaala joogaa jira dad lala soo qabtay oo waxaan markay ogaa loo sheegayna joogaa jiro waxuu ka dhaafay kiiskaas ilbir habeenka isaga ah wuu soo galay isagana oo bateri baawarta la sheegay guriga ilbir ya fadhiistaan waa shabakad isku xiran ahaan marka oo la isticmaalay marka horta nimanka saasan kiiskooda ugu gudbay suu yaasiin sheegay waaye wayna is yaqaaneen anigaa garanay qaraabaan nahay taas intaan ugu gudbiyataan ilbir mudana guddoomiye waxaa xoogga soo saaray nimankaas oo shabaabta ah waan dagaal toban iyo dadka waqtiga Ethiopia bay dhagan qabeen ilaa hadda maamulka dowladdan ku jiray dhowr xil aan qabtay ragga shabaab isku adigoo kale aan isku dagaalsan yihiin baan isku dagaalsanahay marka ilbir waxaa la soo isticmaalay yarka staafka iyo marka wuxuu yiri inuu hebel ba soo wacay waan kaasa loo soo dhaxmaray ciisow baa la yiraahdaa sawiraantiisii muuqaalkiisa wixii waa la codadka dhan waa haynaa marka waxaa la yiri lacag baa lagu siinay dalka uga baxay arcas meel aan ka galno waan weynay ninkaas waxaan rabnaa inaan taas oo lacag qaatid aad guriga miina codadka duubanaya marka waxaan dhahay orod moomiro soo gado moomiriga u geliyo telefoonka hawshii baa socotay habeenkii meel la maraa la waayay roondo badanaa maqneyd wuu soo hadlay wuxuu yidhi maadaama ay roondo badan maqan tahay meel aan bahashi aan soo marsiinay ma laha maalintii ma kuu soo dhigaa buu yidhi waa dhigi waayey marka haddana 6 saac camal soo wacay diyaar ma tahay haa 8 saac buu marka wuxuu soo dhigay meel saacadda marka markuu cunuga telefoon loo soo diray anigu iimaanaya waa dhegeysanaya bahashi meeshaasaan soo dhigo yidhi marka okay anigu Amazon baan raboodka siiyey asagana bax baan dhahay kaligiis baa baxay markuu miinadii meeshay taale xaq u dhowdahay wuxuu arkay ilbir oo meesha ka soo baxay codadkii ku jirtaa kiiba wuxuu yiri ilbir baa arkay marada tuutaa qabtaa ma dhar caadi baan qabaa marka ilbir ka gab ani marka waxaan dhahay ilbir inuu asaga bahasha keenay shaki kuma jiro adi ka gab ku arkan meel duuru ka galay ilbir ku dhaafay soo macaws u leelanta 8 saac way oo qoraxda kuleesha markuu dhaafay buu baxay marka ilbir kulli gurigiisu tagaya waxaan dhahnay bahashi muhiimka in miina aan aragnay waa la hagay marka miinadii jawaari wuxuu u dhusuqlay iyo kurbeerti hoosteeda ku jirtay jidka dhinaciisa taashay meeshu ilbir ka soo degay ee baashan taashay marka miinadu waa arkay marka internet iska dibin Amazon taa wacna miinada soo qarxinay markiiba taliina basuud waxa uu diray ilbir soo qabtay marka waa la soo qabtay waa la figay halkii eri ugu horeeyay wuxuu yiri aniga wax sidan la yeelayo wax ani aan galabsaday waay wax ani aan galabsaday sidan la yeelayo marka mudane guddoomiye raggan shabakad isku xiran ay ahaayeen yaasiin suu sheegay waa isku la jireen oo raggan xogtaas ay ka ahaayeen marka tanmiinadan leeyahay dabacsanaan codadkeedii baa la hayaa guddoomiyaha sariirta hoosteed u geli iska faalada oo armaajada u saar waxaas oo dhan way duuban yihiin askariga la hadlaynaa markii askariga la hadlayaa oo ag fadhiyaa ilbirka magaciisa ma sheegeen asaga codku waxa ku jira kan la soo hadlayo oo wuxuu yiri ilbir baan arkaa aniga uu sheegay wuxuu yiri ilbir baan arkaa si ilbir ka gabaanay marka aniga ayaga asaga markii loo dhahay ilbir arka muxuu dhahay kaas wuxuu yiri kaas mar dhar caadi ah qabta tuuti ma qabta marka waxa weey markay baasha ay meel dhigayaan ilaala kale way dhigaan yani hadii ninkii wax u dirsadeen uu dawlad uu fashilinayo oo askar ay la jirto iyo hadii kan dad ilaalan magaalada geesiga u dhigayaan marka aniga fiil kaliisaan diray hadii uu dad la jiro ay arkaan oo loo sheegay Cabdiraxmaan ninkii staff guddoomiyaha askar baa la jiray ma sheegay marka baashan saas ku fashalmaysaa kaligiis arkaan ilbir baan arkaa buu yiri oo meesha li tilmaamay u dhow ani ka gabaana ilbir ku arkan uu ka gabada ilbir haduu dhaafay meeshu tagay marka meeshu ka soo degay jidka moota taashay waxa kale ka hilmaamay markuu waagi markuu bariyay toosweyn meel yara 30 kilomitir noo jidka ka soo tagay nigan bajaaju ka imaaday mooto derbiga taasho oo nin qaraabe oo leeyahay oo hadda guddoomiyaha xaafadno ah mootiisu watay baashu ku keenay ninkii markii la qabtay wuxuu yiri mootideedii aniga jaad ma ku keenay balkan meel waa beer dhaxda hadii mooto lagu dhax wado bal baa dhax galay badiiladan wax dhar baa
balkan ku dhex jiray ilmir baa iga wato yiri marka calaamuu dhigay marka mootadii meeshuu iska dhigay guriga afkiisa calaamo istilaabuu dhigay meeshuu ka soo degay meeshuu ka soo degayna miinaa taash istilaab cunuga marka tilmaanta ku jirta meesha istilaab ma aragta haa mooto ma aragta haa hore u soco istilaab ma aragta haa dhinacaada fiiri joodari hoosteeda baash ku jirto fiiri haa intaasoo dhan codkeen waa duubay cabdimajiid xasan cabdiraxmaan madkayr baydhabo ayuu soo galay si uu uga nasiino qaato rafaadka iyo siraca jabhadka duurka ku jira uu waqti ku maqnaa lamaha amniga gaar ahaan sirdoonka qaranka ayaase ka warqabay oo kala degay gaarigii uu ku soo galay caasimadda baydhabo aan rafadii la galay hadana talaya ku baayay ilaa intaas maxaa qabanaysa maxaa ka dhex qabanaysa walla ka wadaa milamado tijeeglo leeroogni walba may ku helaan hadana tijeeglo baa ku tamni buush madin leen nijay hatan meel lay baa ku tahay bashiir maxamed yuusuf macalin maxamed siciid xasan madnuur oo afgarashadiisu ay tahay xareer xasan cali xuseen cusmaan iyo cabdiqaadir cusmaan maxamed heesow ayaa dhinacyo kala duwan oo bulshada ku dhex milmay iyagoo huwan shaarka diimeed ee ummadda lagu xasuuqo kana tirsan laanta dilalka gaar ahaan kuwa falalka amni darada ka geysta magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya maqala ku galay madiiro buurdon leelijay buurdon leelo qaaday tijeeg loo lijay tijeeg loo qaaday buush madiina lijay buush madiina aku dhum badireed soo dhumat ha inta marka imaanaysi maxaa lagu soo diray ma jabhad buu darno ma markis laa shabaab aan ku abtay tashkiilay bay buush madiina saade buush madiina magaalada Todobir ama la roogni walna qaaday meel buush madiina ka dheerayna lijay ono meel roogno aad muddo aad 20 maalmood ama roog wiilina nin qaadnay tababaran nin qaada la fado yaa ku dhuumadana ka tabi waba ka tabi hamara toosan saade amar meel ka shaqaysaday abaarada muddo 6 amal ba hamar rooy maxaa ka shaqaynaysa gaari ACBL hadana bay dhoy bay dhoon roogsi laaygo qaybta ka shaqaynaysa dah ilaa iyo waxaan ka shaqaynay ka sheegal laamig meesha oo tabeela isgoos loo dagay ilaa idahan ka shaqaynay meeshaas oo shinta baydhabo maxaa timid baydhabo hooyada joogtaan soo booqanay shaqada xamar waay adeerkay ilaa waa gaari asliya ka shaqaynay gaarigii hadda sama wad wali may waa la gaday mar la gaday maxaa qabanaysa markii inta la gaday kadib maxaa qabanaysa marka la gaday waa soo baa inta la imaaday inta meeqa joogto markii lagu xiraay inta waxaan joogay 7 maalmood ama 8 maalmood meelaas marka asma meeqa maal ka hor gasna marka adii intaan soo bixin bil amal anoo baaqo muunta xamar ku aan soo baxay hada shaqayn soo baxay dhaag soo tagay marka inta imaaday oo ida ku dhaay ya hadda shabaab mu shaqeeyeen ما الشباب شغلكم اللي مو شقينين به وابك صو عريه هذه جبهد ما هي نقت جبهد ما بقارين جبهد تبر مقال ايه مركز اساسي اي تشكيله الى محمد اللي بوش مديني يا سيدي مركز سميلك قالني ما في برميلا روي اكو مدي بايدو لي جو ددن ما قجرت شباب سمي فرمان بايدو ما قجرت marka lagu qabanayo baar boolo la leego baarku soo naqadka lagu qabto ha ya kula socday fagan kale ilaahay shilaan budak soo wax ugu jaleey soo wada aye ugu kadib Mombasa ligay Mombasa bush madiina loo keenay kadib ma markaska ku jirnay loo qof ay u tashkiilis loo qof mid waxa la nuur kuulo mid waxa la Abdulqaadir Abbas markas bush madiina ku jirnay kadib nolka xiyay tababarkan u geeyay tababarka shan taw maalin ku soo qaatay kadib baydaa soo هذا بدما دقنتها ما حمر 350 qof 350 فائده maxaa baranaysan sidii diyaarad loo dhunto diyaarad si loogu dhunto صح sidii qorigii booshka loo qaato culeyskii miisaankiisa loo qaato la baraa jabhad amniyad xibsi wiil lama kala saaran tababarkan ku jirnaa inta u socotay dadku boqoraan aniga muqdisho ma degantaa abeega deganaa maxaa qabtaa baa wax ma ashtaa dukaan ugu shaqeeyaa inta degmada degantiin kaaran kaarana taadi صح inta marka maxaa ka soo doontay in boosajada xamo gaari laga raacay Sakariya Maxamed Axmed ayaa isna loo haystaa inuu argixisada u ahaa ilaaliyaha xoolaha baadda ah oo qawaariijtu si qasab ah uga soo ururiyaan dadka shacabka ee xoolo dhaqatada tagayjay aye meelo xoolaha ay oo laga raawo xoolahaasana ay jaray raajari xoolahaas aku dhuumayaan madana fahmo xoolaha marka meeqa xoolo camal ay la jirto 200 ama ari leeyahay ari ha inta keeneen dadko kiintaayga waa shacab yalla waaday kadib mooji meeli jeeyeen laakiin maxay ku siinayeen meeqa ku siinayeen $100 ha meeqa sana raacaysa 4 bilood ama la raacay hadda inta maxaa u timid aad isku kooyleena oo shacabele isku hay ya ku joogint anta nambumin roga anon takoy meel raay magaydos ku shaqeeya aw ka doojay ay idan gorada
تاساس ما إلى رئيس كروجي جري أنت ما دانا لما ضو بلاد يروجي يا اللي جبت ما قرضوا أنا كو أو كي إنجي حافظون سوا ما الليل يعني ياكم سحري أو كي هذا لنا كإس قرضايا ساسا يدم إلى رأينا كسيد أبها أبها كين يرو بس كين يدقني أيس أبها سأقول هذا شمرك تلفك كلا هذا تلفك أبها متقنا ما وسيل هذا لي وسيل هذا لي أنا مركون مقايدو ميلي كشجعي مقايدو أنا كشجعي سوا ما إلى رأي كي كان كله تسوا يندري ولقى ما لها شعبها ولقى ما كانوا أسيق ما كوش شجعوا لها هذا ها وسين شيء كان الروجو إن شيء أبا يري وسين مدرسة موبيل جايين كدي ساسا كله هذا baaraka tirsan nabad sugidda sirdoonka qaranka ee NISA ayaa maxkamaddu ku biiriyay natiijada baarista galalka 11 eedeysane ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaana dhexe Axmed Cabdallah ayaa maxkamadda ka codsaday in dhammaan eedeysanayaashan lagu qaado ciqaabaha ay dhigayaan qodobada xeerka la dagaalanka argagixisada laba qarax oo la geeyay degmada Bardaale labada qarax waxaa kala geeyay meesha eedeysane Ilbir iyo eedeysanaha labaad oo ah Cabdiyare mudan gudoomiye Ilbir saan hadaa u soo bilaabo maxaa cadeenayo ama maxaa marqaati ah oo aan ku heena eedeysanaha bacdama uu dafirsan yahay maxkamadda horteeda Ilbir waxa cadeenayo oo ku heena koow horta marqaati aan hor keenay maxkamadda oo ah Cabdiraxmaan oo ku arkay qarax miinada ee la rabay in gudoomiyaha degmada Bardaale lagu qarxiyo isagoo dul taagan qaraxi isagoo ishaare ka bixinayo marqaati ayaan hor keenay maxkamadda oo ku cadeeyay eedeysanaha lambar 2 maxaa cadeenayo in eedeysanaha uu argagixisada ka tirsan yahay ama qaraxaasina uu ku lug leeyahay waxa cadeenayo eedeysanaha ama dhagar qabaha maqani ee soo dhiibay qaraxaasi ee lagu magacaabo Ciise iyo eedeysanahan waa yaqaan aqoona ka dhaxayso xiriira ka dhaxeeyo teleefankooduna waa laga helayaa teleefankiisa eedeysana Ciise iyo teleefanka ninka waa suuceen waana is yaqaanaano nin ka tirsan maleeshiyaad gacan saar la leh kooxda argagixisada ee al-shabaab waaye Ciise waa nin la yaqaano waaye iyo ninkaani waa dad is yaqaano oo xiriir ka dhaxeeyo so markii ay isla hadlayeen eedeysanahan markii isla hadlayeen Cabdiraxmaan iyo Ciise hadalladii ay isdhex mareen waxa ku jirtay in Ilbir meesha uu ka soo socdo Ilbir meeshaas ma ka soo socda meeshaas horta jooradii ma yaalaha calaamad saas ma ku taalaha meeshaas waa meesha ka doono meesha Ilbir ka soo socdo Ilbir iska dhaafaleeyay ee aad alaabtaas qaado so inay isla wada socdeen Ciise iyo ninkan waxa cadeenayo Cabdiraxmaan cadeenayo codadka Cabdiraxmaan iyo Ciise dhex marayna maxkamadda u soo gudbinayna oo la wadaagayna saas awgeed Cabdi Cali Aadan oo lagu naanayso Ilbir qaraxaasi asaga magaalada Bardaale keenay in gudoomiyaha degmada lagu qarxiyo ayuu rabay kooxda argagixisada al-shabaabne uu ka tirsan yahay eedeysanaha intaas cadeynayso lambar 2 wuxuu gudoomiyaha degmada cadeeyay in horey loo soo xiray eedeysanaha in hadda ka hor ayagoo howlgal sameynayo oo anteenadii magaalada la damiyay meesha uu asagana lagu arkay wuxuu maxkamadda waxa kale oo laga hor cadeeyay in eedeysanaha markii la soo qabtay wuxuu watay motofacontiisa waxaa ku taalay bal aageysa ay kala heed balkaas wuxuu cadeynayaa inuu duur ka yimid argagixisada uu ka yimid dhankeeda sababtoo eedeysanaha shaqadiisa ma aha balkaas shaqadiisa ma aha jaad ayuu ka ganacsadaa jaad uu geegeeyaa so inuu miinadaas soo qaaday waqti xaadirkaas uu meesha keenay ayay cadeynaysaa eedeysanahaasi halkaas ayaa u gudbo Cabdi Cali Ilbir miinadaasi lagu qarxin rabay gudoomiyaha degmada asaga keenay waxaa ku soo haray Cabdi Yare iyo Cali Iimaan argagixisaday ka tirsan yihiin waxay ka dambeeyeen qaraxii lala beegsaday Cabdi Joobey waa dhaawac hadda dhibanaha nooma suurtagelin in maxkamadda hor keeno dhagar qabayaasha al-shabaab ninkaasi aad ay u raadinayeen sida gudoomiyaha degmada ay u raadinayeen amal asagana waxay la rabeen inay qarxiyaan qaraxaasi waxaa ka dambeeyay marka labadaani eedeysana ka dambeeyay oo qarax meesha keenay gudoomiyaha waxa la barakacayaasha arkay inuu meesha kula laabanayo habeenkii uu meeshaas tagaayo wadadaas inuu marayo waxayna uga sheekeeyeen Yaasiin qaladka uu sameeyay kaliya waxay ahayd inuu laamaha amniga arintaas la wadaagin Yaasiin laakiin markii laamaha amniga ay qabteen si toos oo u sheegay wuxuu yiri qaraxaasi waxa ka dambeeyay Cabdiyare iyo Cali Iimaan sidaas laamaha amniga ay ku soo qabteen
cabdiyare maxkamadda horteeda waxaa lagu markhaati furay oo gudoomiyaha degmada uu sheegay in qaraxaani uusan ugu horeynin qarax horey uga dhacayna laga soo qabtay meesha asagaa fuliyey qaraxaasi si musuq maasuqoon uga baxay xabsiga mee saacaddan maxkamadda waa la hor keeni lahaa eedeysanaha ayadoo caddayn fiican lagu haayo haddaba mudane gudoomiye cabdiyare iyo cali iimaan argixisada inay ka tirsan yihiin waa caddahay horey waa loo soo xiray cabdiyare qaraxaasaa loo soo xiray ninkaa laakiin dhowr jeeraa lasoo xiraa baa layidhi cali iimaan isaaq marka eedeysana yaasiin nuur maxamed laamaha amniga uu la shaqeeyey qaraxaasi markuu dhacay wuu sheegay labadan ninaa ka dambeysay labadan ilaa hadda maxkamadda horteedoo la taagay waxayba ahaydba hay-adda soo baartay ee nisa inay ninkaas sii daayaan markhaati ahaan maxkamadda ay u keenaan oo labadan eedeysan uu ku markhaati furay ahayd laakiin meesa dhicin maxkamadda laakiin aniga waxaan ka codsanaya maxkamadda sharafta leh in eedeysanahani caddayntiisa iyo maxkamadda wuxuu ka hor sheegay horta markhaati ahaan loo waafaqo oo labadan eedeysana ayuu dembiga ku caddeynayaa si xaqoon u hadlay haddii da ahaan la fiiriyo waa ninka ugu da-da weyn afarta eedeysane sida dhalinyaradan oo kale been wuu sheegi waayey wuu ku dhiiran waayey inuu been sheego nin ilaahay ka cabsanayo waaye si saxoo sheegay dhibka waxaa loo geystay waa dad deegaankiisa kulligood waa dadooda qaraaba ah reer bardaalo waay marka sida saxda ah ayuu sheegay maadaama runta uu sheegay in oo markhaati ahaan loo aqoonsadaa codsanaya asagoo eedeysanaan markhaati ahaan waa loo aqoonsan karaayo 199 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ayaa ii fasaxayo laakiin maxkamadda sharafta waxaa ka codsanaya in eedeysanayaasha Cabdiyare Ibare cali iimaan iyo cabdi cali ilbir ay maxkamadda ku xukunto ciqaabaha ugu adag ay dhigayaan qodobada aan ku soo eedeynay waxay qaraxyo keeneen degmadaasi way qarxiyeen natiijada ka dhalan lahayd waa dhimasho saas awgeed waxaa codsanayaa in maxkamadda ay ku xukunto ciqaab dil toogashaa saddexdaas maadaama qaraxyadaas ayaga ay ka dambeeyeen mudane gudoomiye yaasiin nuur maxamed bacdama markhaatiyaasha aan maxkamadda hor keennay dhammaantoodii ay sheegeen in loo haysto keliya maxaa u soo sheegi waysa marka hore waa sax dembi ka hortagis buu samayn lahaa muwaadin Soomaaliyeed waa xaqaa loogu lahaa inuu dembi ka hortago keliya waxaa ku filayd inuu cabdi joobe waco telefonkiisa u haayo cabdi joobe qaraxa lagu dhigay iska ilaali cabdi joobe ka joogsan lahaa dhaawacaas ma gaari lahayn laakiin eedda loo haysto eedeysanayaasha lama mid ahan oo shabaab waaye markhaati dhahayo gudoomiye degmadan ma dhihin maragii kalena ma soo dhihin baarihina muusa dhihin keliya eedda loo haysto waxay ahayd in uusan dembiga intuusan dhicin ka hor ayaa loo sheegay oo labadan dhagar qaba ee u sheegeen marqaana loogu sheegay hadda Cabdiyare jaad ma cuntaa maxkamadda way weydiisay balood ma leedahay ma uu yiri yaasiin wuu ogyahay inuu ninka balood leeyahay maxkamaddan hore ugu sheegay isaga laftirkiisa qiraala maxkamadda ka qortay waa tusin karnaa balood inuu leeyahay ku cadeeyay qiraalkaas maxkamadda laakiin hadda maxkamadda horteeda wuu booday nin saas isku badbedelayo waay waa ku cadeeyay dhagarta saas awgeed mudane gudoomiye bacdama yaasiin uu maxkamadda u cadeeyay hay'adihii baarista uu cadeeyay sidoo kalena uu ka shaqeeyay soo qabashada labadan dhagar qaba oo dhuumaalaysan lahaa waxaa maxkamadda sharafta la ka codsanaya inay kiiskiisa go'aan ka gaarto haddaba mudane gudoomiye 6 eedeysane qiraal waaye oo maxkamadda horteedana waa ka qirteen fadhigii koowaad ee maxkamadda aan horgeynayna garsoorka hortiisa ayay qiraal ka sameeyeen eedeysanayaashani shabaab waa ka tirsan yihiin qiraal ayay ka yihiin in shabaab ay ku biireen tababar soo qaateen nin walba qayb ayuu ka tirsan yahay marka labadan eedeysane sida hadda baarayaasha ay maxkamadda ka hor cadeeyeen baarayaasha soo baaray isku tababar ayay ahaayeen isku waqti ay shabaab ku biireen tababarka isku si u soo qaateen magaaladan Baydhabo ayagoo soo galayaan la wada qabtay oo way isla socdeen isku shaqo ayaa loo soo diray waxaa loo soo diray inay dhagar ka fuliyaan Baydhabo balse laamaha amniga ayaa ka hortag ku sameeyay crime prevention waa laga hortagay dambigoodii waa la soo qabtay sidaas cadaalad u hor keenay maanta waxaa sugoonaa inay cadaalad helaan shabaabnimadii ay ku biireen tababarkii u soo qaateen ayada ayaa xeer leh xeerka la dagaalanka argagixisada qodobo ay leeyihiin qodobadii jabiyeen maxkamaddu aan ugu hor keeni doonaa waxaa ku soo haray eedeysanayaasha Maxamed Saciid Xasan Cali iyo Cabdiqaadir saddexdaanba tababar ayay soo qaateen waxay ku biireen kooxda al-shabaab waa qirsan yihiin inay ku biireen tababar ay soo qaateen waxaa loo soo kala diray labana Muqdisho loo diray oo halkan Baydhabo laga qabtay macnaha waxay rabeen si toos ah dhinacaas ma soo aadinay Baydhabo la soo aaday kadib la rabo Muqdisho in la aado waxaa ka hortagay laamaha amniga ee magaalada Baydhabo joogo gaar ahaan hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ka hortagtay dhagartooda waa la qabtay sidaas ayaan cadaalad u hor keenay way qirsan yihiin in shabaab ka tirsan yihiin tababar soo qaateen
keliya waxa ay dafirsanayaan waxa hadda shaqana looma soo dirin waa soo fakanay waxaas waxba kama jiro waxay rabaan laamaha amniga inay cadaaladda inay uga leexdaan oo naxariis meeshaas ay ka helaan ay rabaan shaqa loo soo diray dhamaantood laakiin waxaa la yaab leh mudane gudoomiye eedeysanaha afaraad eedeysanaha lixaad oo ah zakariye maxkamaddu wuxuu ka hor sheegay hadda aabihiis iyo abtigiis inay ku tashkiiliyeen shabaab inuu ka mid noqdo waa arrin aad la yaab u leh isagoo da'yar ay waalidkiisa waxay u dooreen inuu shabaab ka mid noqdo gaar ahaan kooxda baadda ka qaado argagixisada shacabka Soomaaliyeed baadda ka qaada xoolaha xoolo dhaqatada dadka ah xoolaha sida xoogga ah uga soo aruuriya waxa ka soo aruuriyana waxa kamid ah abtigiis Cabdullaahi Xasan Isaaq asaga waxaa dhashay Nuuriyo Xasan Isaaq dhashay ninka dhibaatada sameynayna waa Cabdullaahi Xasan Isaaq oo ah shabaab gaar ahaan qaybta zakawaadka ayaga u yaqaanaan laakiin zakay aruurinaya ma jirtee baad ayay waxay ka qaadayaan shacabka Soomaaliyeed waliba dad xoolo dhaqato ah oo xoolahooda ku soo tiiri tacab beelay ay si xoog uga soo qaadayaan zakariina waa ninka ilaalinaya xoolahaas oo ilaalinaya waa waraabinaya waa ka taxadaraya ilaa suuqa laga geenayo oo laga iibsanayo marka zakariye uu qirsan yahay inuu shabaab yahay gaar ahaan qowsaar shabaab ka tirsan inuu yahay oo xoolahaas la soo dhaco uu ilaalin jiro ayuu qirsan yahay haddaba mudane gudoomiye sidoo kale waxaa la yaab leh ninka Maxamed Saciid waxaa tashkiiliyay asna abtigiis kanaalkiisa ku qoran tahay abtigiisa tashkiiliyay teamka marka abtigiis muxuu yahay abtigiis waa shabaab kale waa al-shabaab ka tirsan yahay Cabduqaadir reer Muqdisho ah ninka dhahay waa hadda oo Muqdisho u socday yaa tashkiiliyay waxaa tashkiiliyay nin la yiraahdo Nuur Kuulow iyo Cabduqaadir Ciise kulli Cabduqaadir Ciise labadoodaba lama amniga ayaa ku raajoogo waa la soo qaban doonaa cadaaladana maalin un keeni doonaa waxay qaabilsan yihiin shabaabka waxay u qaabilsan yihiin tashkiilinta sida eedeysanahan oo kale ayay soo tashkiiliyaan haddaba mudane gudoomiye bacdama lixda eedeysanaba ay qiraal ka yihiin inay shabaab ka tirsan yihiin tababar soo qaateen haddana shaqo loo soo diray oo ah madax jabis loo soo diray qaybna dhawo loo soo diray qaybna Muqdisho loo diray bacdama reer Muqdisho ahayna Muqdisho si fiican u kala yaqaanaan waxaan maxkamad sharafta la ka codsanaynaa waxaan waafaqsanahay eedda aan ku soo eedeynay qodobada aan ku soo eedeynay bacdama eedeysanayaashani ay shabaab ku biireen ku biirista waa dambi tababar soo qaateen tababarkii soo qaateen waa dambi haddana dhagar kale ayaa loo soo diray inay dhig daadiyaan waxaan maxkamad sharafta la ka codsanayaa in ciqaabaha ugu adag ee dhigayaan qodobada aan ku soo eedeynay eedeysanayaashan lagu xukumo maxkamad sharafta la waa maasantahay abukaate Sheekh Ibraahin Cagama Dhige ayaa ku dooday inaysan dhamaystirnayn cadeymaha dambiga ee loo haysto muwakkiliintiisa sidaas darteedna uu maxkamadda ka codsaday inay ku weyso eedda loo soo jeediyey dhammaantood dhammaan inta sulintiinna usuulu ku dheegi bas alin haysada hay-adaha amniga aan sheegi intan alin haysada heer ilaalinta naftarja may sheegan in markhaat haan haayaan marka markhaati la hiraaw yaa la rug hela sheego inta kale la sheegi lankan muku warhayo arri lanka cadeeyo hadda lankan in sheegi lay lankan hadda in sheegi hobari farhiinta lanka dad hageysi Ali ahay Ali Abdiyare farhiinta dad hageysi daraadiye falka jeysidi mayle ha sheego ki lanka isku da'wiinay han sheegi ya isuna leen ciqaabo hay fakadalika lanka kala maylin haysade haddu kora lihiri iyo mootadu wadiye leen haysade wila cadeen malan hay ama ilber marmaylin haysade balaha dhahmaray balaka labanay jaada ka shaqayay lanka jaadka haqaadaw beero ha dhahmare jaadka berdaal dhatiye maka bahaw Kenya lu ku sheene jididku wal ha ku wareegay beero la dhahmare marka bal cadadaanki balka dadka reebay qorshay lahaay bise miina cadadeen marheebas balna lanka jaadka mara beero ha mare duurka ha mare busta ha mare marka may beero han dhahmarti yaleen gaabo hay mid kale may sheegay lanka markhaatida hay zoonku isu deganay in miinada la ka arag kaame qahooti degan reer magaal degan walwalba degan wada hadalkana ma ka jarta elberaha kiinka dhiibi ma ka jarta elbera meel surun isu calaama kiin ee mal arn meel elbera kiin calaama mal arn marka lanku isku socdo meegalan iyo socod meel miina maraasa ka garahdi isu bi ilaahay amooti
ما وابك قرها فديبه يسوبا إلهي موتي مركه إلى حد لان مرخاتك عد مجرته ما دام مركه موكلين تي قضبة هرس اسهرتاك قضب كبقول إشان تيجين عدين إنهاين ولا عدين إنجرن نتيجة قرش الآن تقضب كبقول السجال تيجين محكمة ما يقصدي إنك هلا قضب كبقول لباتني لبا أو دمبكوايد ما دام والعدين بالإنهاين إني هريديو دبلينسي أن قال أنت لك هاي لكن مرخات لا الدولة ولا هنشيء إن اللعقابي أنت مال مودنا أنت كهيرناين قرشة إديها هيرتي إني لكو قاعدة محكمة شرفت الله ساقو أتصدان عبد المجيد مركي حكو بالله ونطم إسرائيل جرواي حدنا قرال يميك شيء إني مدقابا وسهل الروجي تم إتضب مال مود تم إسرائيل كاس سنة أسجرة يا الشباب صدق ودنك الروج ميلوس الروج يا الشباب روجو كلالد ولي شيء ما أرجنا لان والأنشاء أما الشباب كأني سني لان أنشاء هرمارك وبقولها كدالدي سيبت الكاس هذا الشيء كذا كدالدي زون ويجد يو نجاسة كدالدي لان هرتشكيله ولا شيء جمله لان خسالة ديرتي بانهاين أما يجي لان كلا راو بشير لم يدواي لباتي سد سني لباتي إكو سني جر لباتي إكو سن شباب قبل لما سني كوين الناس أديس نوجا أراض بالشباب كوين والكلام جرب هرمديج حدنا ساسته مع ذلك أن لن شيء أبو هاي ثم اتضو مال مود مركيه الروجي وسدوشوا يولاجوا هم بجوين حكوتابي وأنا لما ديو أني هالقلنا نندرنا ميك كساسة هالميل اللي سكولو قري هالميل هسكولو دومتين هالمالن هسكولو تبع تضو ثم اتضو بير ده توبر كوجادا ومه توبر لان ثم اتضو بير كوجادا ومه ده هالدوم مديا هاي سده هراي بلين شيء أو لانك بارها بس أري ويكسو غوستن مركز غوست شو التائب من الذنب كما لا ذنب أنا قداس مدك على محمد سعيد سد حسن يموجي مركز سوس الشيء مركز محمد سعيد هدي سد حسن يسموجي نفتر شيء والبوها لا شباب كترسم ما هدي يسفضاو هو الجلاس وبيفادي يسوه الجل هاي ولا هكجوب فادي سد سن كهر والهاي أو يسوب كتوب بشينيو عبد القادر لباتن جركة نفتر شيء ما ينشجع إني إسماعيل هاي أن كداين إسلامركي بدأت كتابتهم إيش عن مال موضة روجيري مركز كدي من حقوق مدي لا ما أمان كان حقي جين إني حقوق مدي ميلس يون حقي جين سكري أوكله لم هول داجا هاي لم باغ مودة أنك وسدو يسوب شيء ساكو الروجي ساكو أم الدولة إن كدم بي نعم سيد بريء دتن دولة مثال هل ما لنا بابورتو كسمان إنجيد إثيوبيا كي هلقي مدوق محاكمتي كورمرت هلو يسدال ذي بمهين لما تكون يو لحدي يا شباب الكاسكوبس إلى يومنا هذا هانا ساكن هدو جويسدي لان والأجمعين هذا نوابها كوجوسدي هذه إيرين جو داجي أفكارتي أجادي إنك قلدنتا أجادي لان إلهي حكمة سيانا ده كوجي أو كتابي مركب ما دام محكمة أنفض داين ولي جري شيئين أنا محكمة فيري ده قضب كأفرتنات هير كعقابة الصوماليات ساس أكله أنفض دايت أو لكن إلين لجي أنت ساكو أتصدق قضب كبولابات إلا ما أنفيري ده وبالله توفيق وأنا محكمة ده gaashaana sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdi fataax khiyaar warbaahinta qaranka beedhaba janay